ilanta shalay timi ama gabadha shalay timi waa gabadha de waxa iyada iska duubtay waxa laga duubayba record badan ama wax badan oo la duubay ka yaalin oo aad iyo aad runtii de aan ahayn qof shicib oo caadi ah ka laascaanood de marka xaqiiqada laga hadlay caadifada laga reebo kamu dhicin gambara oo bari ka xigta laascaanood kamu dhicin ari cadeeyo ka xigta galbeed ka xigta laascaanood iyo koonfuriyo waqooyi toon hadaad isaaq tahay ama dhuumo ama dhimo wuxuu dhaxay ma jir tuulooyinku bay nabadgeleenin xuduudka marka laga gudbo quraba noloshu suuragalahay qofku de waa garan isku difaaco yiraahdo idinka maxaa la dagaaladaas bariga ka dagaalantay laakiin laba dagaalo runtii isku miisaan lama yahayn isu dhow ma yahayn mid waxa lagu tirin karaa ka barigaas waxyaabaha ama atrocity ingiriiska waxa lagu yiraahdo xad gudubyo qeyr caadi ama reerka wuxuu ku dirta qaba laakiin xukuumadda anaga nala doorto si taas u dhacda laakiin wayn golaha guurtu noqdo mid jira oo shaqeynaya wayn baarlamaanku noqdo mid jira isaguna shaqeynayo awood leh وين حكومة فرنتيودنا أود ذيرته وين شرنا عيدما أمني وحوق له عدة شبي سحر كاس لكن دمرت أضيع عاقل قعنته وجلس أضيع جينا ويقول هذا مسديدي بس أنكو دورته مركز ساق أبو وحشرة كوبي نوع السحر برا كاهي مدح رقمات كا يسياسين كواسانا حلكينا يجاني مكبدلك بابي يجانا حلك كساركرا كلنتها بوندا وضيالي دلهانتين بمل والبان نجد داون إنسان واحد كسر دواتان ورئيس جاره استوديو التلفزيون كعالمي جاي شاهد تي في كل يالنا إنه أقويهن إنجنير عبد الرحمن جامع إسماعيل ولوجري هاي شمال جامع يرى كم إذا أقويهن هذا السومالي لأن شمال مركونه كسر دويني يا شاهد تي في سودو عادي أدبل ما سنت بالجوهرين وحى عاد له هذا الحي إلى شلي أو وركيدو مجال إيو سومال لام بيجلجلين وحالات قبل كيسول فيه موقع شو كم إذا سياسيين تا كسو جدا قبل كسول إيو سيدو كله تد للسعودية بالسودوي وزيرة كترسان حكومة ده حل بارنا مدح رقمات أي سوين سودوي بالجوهرين حالات ده صول إيو سودوين تا سياسية ده بالكور عادي أدبل ما سنت أحمد horta marka hore waan salaamay daawadayaasheen iyo idinkaba marka labaad de horta waxaynu u ducaynaynaa ilaaha raxmaanka inuu nabadina siiyo nabadu waa tiirka koowaad ee nolosha nabadu way wanaagsan tahay laascaanaduna qurama ah dhinaca galbeedkana way ka taagan tahay in nabadda la xasilinayo marka horta nabadda guud ahaan damba qof walba ugu jirta cid gaar ah ugu jirta ama dhamaantiin way noogu jirtaa waxaan wanaagsan in laga wada hadlo habkee bay nabadda ku iman kartaa ugu wanaagsan marka soo dhaweynta hadaan u gudbo runtii de maxaa la yiraahdaa labeentii dalka shalay airport isugu tagtay soo dhaweyn weyn baa la sameeyay horta anigu kulli shakhsiyan waxaan ugu duceynaa ilaahay inaan ku kashfin soo dhaweyntaas ay noqoto mid midho dhala marka soo dhaweyntaas de waa la isugu tag la soo dhaweey waxa muhiim ah inay halka laga sii ambaqaado aan loo aragin inta ku dhamaatay arintu xukuumadda kale talawan waxaan soo jeedin lahaa ilanta shalay timi ama gabadha shalay timi waa gabadha de waxa iyada iska duubtay waxa laga duubayba record badan ama wax badan oo la duubay ka yaalin oo aad iyo aad runtii de aan ahayn qof shicib oo caadi ah aan ahayn marka ammaankeeda kulli xukuumadda ayuu xil ka saaran yahay way dhici kartaa dad de u arkaya inay iyaga dhibaatooyin u geysatay inay ay de ka falceliyaan marka ammaanka kulli xukuumaddu ay ku filan tahay waan ku baraarujinayna ammaankeeda la ilaaliyo way madasha lagu soo dhaweynayay inanta waxa ka soo qayb galay si ognahay siyaasiyiin iyo madax dhaqameed iyo uqaal hadallo badan baa laga jeediyay waxyaabaha aadka dadku uga hadlayay waxa kamid ah in isbarbardhig lagu sameeyay dagaalkii ka dhacay gobolka Sool ama Laascaanood iyo dawladda siyaad barre wixii ay Soomaaliland ka geysatay iyo gobolada Soomaaliland bal ka waran iyaga dadka labada dagaal isbarbardhigaya okay horta aad baad ma hasantahay horta marka koowaad marka horeba dagaal waa wax xun dagaal waxa ka yimaada waa dhimasho dhaawac iyo burbur marka de horta dagaalku marka hore waxa laga sugaa waa dhimasho dhaawac burbur iyo barakac laga yaabo dagaalku markuu dhamaado inay ka dambayso inta noolaata in qaar faa'iido ka gaaraan laakiin marka hore dhaawac iyo dhimasho iyo burbur buu leeyahay midaan ku saxee de Soomaaliland oo dhan dagaalka kama wada geysan muu saameyn dagaalkaas uu saameeyay laakiin meelaha burburku gaadhay waxayna Hargeysa Burco Berbera inta adu hadii la si kale loo yiraahdo inta isaaq digo ya burburku xoog galay dhimashada ka dhacday marka horta dagaal guud ahaan waa sidaas anu waxaan marnay dagaalka Laascaanood ka dhacay wuxuu u dhigmayaa dagaaladii soo noqnoqday Burco mar laba jeer ama saddex jeer laga qaxay kii Hargeysadan ka dhacay kuwaas uu dhigmay sababtan saa u leeyahay waxa weeye dagaalada ka dhacay Burco iyo Hargeysa waxay ahaayeen dagaal magaalo siyaasadeed oo ku koobnaa magaalada gudaheeda miyiga tuulooyinka muu gaari jirin
ka laascaanood marka xaqiiqada laga hadlay caadifada laga reebo kamuu dhicin gambara oo bari ka xigta laascaanood kamuu dhicin ari cadeeyo ka xigta galbeed ka xigta laascaanood iyo koonfur iyo waqooyi toona meesha la isku haystay dagaal magaalo ahaa magaalooyinkana dee xitaa hadaynu ka baxnaba Soomaaliya bas kaga baxno iyo Soomaaliba imika waxaanu daawanaa waddanka la yiraahdo Ukraine iyo Ruushka magaalooyin marna Moscow la duqeeya marna waxa la duqeeya maxaa la yiraahdaa Kiev caasimada dad abriya ah oo waxba geysanin oo gurigoodii ku jira madfac ku dhaca ka horta waa dhibaatooyinku ay leedahay dagaaladu inay dad aan waxba geysanin ku dhintaan qof gurigiisa ku jira iskaga dhinto laakiin runtii kii haddii si loo eego taageerayaasha SNM ama haddii si kale loo dhigo leedahay isaaqa wuxuu ahaa haddaad isaaq tahay ama dhuumo ama dhimo wuxuu dhexeeya ma jir tuulooyinku bay nabadgelinin xuduudka marka laga gudbo quraba noloshu suuragal ahayd markaana dawladda si diyaarada haystay diyaaradu xitaa ilaa riixadho kale qofkii garanaya ee hawdkii kaga daba tegi jireen marka aan waxaan maleynayaa rhetoric waxa la yiraahdaa hadal isdifaac qofku dee waa garan isku difaaco yiraahdo idinka maxaa la dagaaladaas bariga ka dagaalantay laakiin laba dagaalo runtii isku miisaan lama yahayn isu dhow ma yahayn mid waxa lagu tirin karaa ka barigaas waxyaabaha ama atrocity English waxa lagu yiraahdo xadgudubyo qeyr caadiya ama dabargooyin wax la yiraahdo kale dawaba oranji hadal baab jiro ciidamada oranji dabargooyinta saaqo kala jiray oo de loo bixiyo lahjada suuqa marka dee laba dagaalo aad u kala xoog badan mid wuxuu ku koobnaa magaalo iyo ujeedooyin oo waa kan burca ka dhacay ay saaqa gudihiisa geystay Hargeysa ka dhacay midna waa ka laascaanood marka aan wax ma burca Hargeysa iyo laascaanood isku bay ahaayeen dagaal laakiin mid baa laga yaabay ku kala duwantay maadaama bulshadeenu u qaabaysan tahay hab qabiilaysan laga yaabay mid in loo arkay dad local oo Yugoslaviya local waxa loo jeedaa Dimitri Saaqo kale Yugoslaviyan wax weyn dhibaato weyn hayn midna uu yara ahaa uu ka baxsanaa metan uu yara Dimitri Saaq daaroodiisa ma karo galay daarood Saaq si uu galay ama Soomaaliya qof bas uu yiraahdo marka laga yaabay psychological effect waxa la mindset ama dadku si u fikirayaan inuu ka yara duwan yahay reaction ku ka yara duwanaado laakiin practical sida u dhacay wax ma labaas isku mid ahayn wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo madasha ku sugnaa wuxuu sheegay in Cabdulla Sandheere wuxuu sheegay in uu xitaa firdhiyo la cafiyay oo qof kasta oo gobolka Sool la cafiyay kelmadda dad badan siyaabo kala duwan bay u turjunteen manay jeclaysan bal ka warnayada iyo anigu shakhsiyadeeda markan macneeyo hadalkaas aan anu si ila muuqtay dhahdo waxa u maleynaya ujeedadu ka wati saxabeedo nabadeyn bay ujeedadu nabad baan u baahanahay in la wada hadlo kaas laakiin kelmadda uu isticmaalay cafinta malaha waxa ka qurux badnayd inuu u dhigo hadal ah soo dhaweyn ama wada hadal amba hadal saaso kala marka aan wax ma wording ama kelmaddu waa laga fiicnaa laakiin ujeedada guud nabad in la gaaro way saxantay way bal maadaama gobolkii Sool xukuumadan looga fadhiyo iyo inay magaalada gacanta Soomaaliland ay dib ugu soo celiso maxaa sidee loo sii wadi karayaa wada hadaladan oo kale horta waa su'aal wanaagsan aniga waxay la tahay mahma baa jirta kule anigu afka Swedish-ka ku barto ilaahada waqtiga nabarada daweeya maalintii 2023 iyo maanta isku mid maaha in ay waqtigu nabarada daweeyo waqti la siiyo arintan aan lagu degdegin loo tala badsado waxaan u maleynaa anigu cid wada hadalada imika si aan baqaado waxa ugu wanaagsan odayaashii ama dadkii odayaashii berigii shirka jaraayad qabtay anagu dagaalka kuma jiro reer ahaan iyo beel ahaan maanta waxa uu taaleeyay maadaama ay markaa waxaan arkay inay chance fiican tahay sababtoo ummaddu inay wax isku wada raacdo waa laga fiican yahay marka waxaan arkay hadalkaas inuu mustaqbalka inaan fiici doono marka waxaan eegi doonaa bal in la yiraahdo waa reer Soomaaliland oo ma kala duwana ama in la rabo isaaqo oo ma kala duwana ama in hadalkoodii maanta macna yeesho wax taro marka odayaashii bariga hadlay waxaan ku dhiirigelin lahaa ku dhiirada wada hadalka maanta xitaa mucaaradna ma ahoo waxa xukuumadii waa dawakaas way inta badan marka dad tusaalahaan Somalilanderka ama marka la eegayo qofku hadduu doonayo wax dhaliilo wixii uu dhaliilayay buu wada nacaya tusaalahaan wixii oo dhan buu wada nacaya wuxuu oranayaa Somaliland oo dhan buu wada dhaliilaya wuxuu doonu sheegaya haddana wuxuu haysan wali baar uu ku badbaado ama chance uu ku badbaado bal ka waranayada niyo horta marka ku wato su'aal wanaagsan waxbarashadeedii qayb kamid ah macallimiinteedii nin kamid ah dardaaranka sanad waxa sabax ahaa weliga waxa wada nicin weligaana waxa wada jeclaanin waa inuu chance ku bandhaado hadhow taad oran karto saas ma la saameeyeen waxaana sheekadu ku timi kalaasan ku dheen waxyaabo cilmiga bulshada waxay ahayd Soomaaliya ayaa berigii dagaalkii 770
wadamo ay filayeen inay la saaxiib noqonayaan oo shuuciyadii taageeray oo ruushka soo raacay markii Ethiopia uu wareegay ruushku waxa ka mid ahayd Yamanta Koonfureed bariga Yamanta Koonfureed loo oran jiray Libya Muammar al-Qaddafi dawlad dhaqaale fiican haystay dhowr wadano noocaas marka Libya waxay bixisay hub aad u fara badan iyo lacagba waxay ku bixisay dhinaca Ethiopia dadna Soomaalidu qeyr al-caadi bay raadiyo Muqdisho uga cayday Qaddafi iyo Libya wixiiba beri dambe jabhadaha kacay marka waxaan dhigaynaa marka marxaladaha Soomaalidu martay marka jabhadaha kacay SSDF iyo kacay maxaa la SNM ba kacday dawladda Soomaaliya way baahatay marka Qaddafi ba marka lacag iyo baabuur iyo wax soo siiyay dabadna waxa raadiyo Muqdisho aad lagu siday shacab shaqiiq Libya wax noocaas walaaladina reer Libya marka labadii marka la isbarbar dhigo maanta waxaynu haysanaa media madax banaanade markii wala isbarbar dhigaa oo darkaysa qofkii uu eegi kara khalad ku shalay maanta laakiin marka isagu de chance-kaas mu jirin oo raadiyo Muqdisho u buuha marka waxa la yaab lahayd markuu macalinkaas soo qaaday beriga waxa la oran jiray maanta waxa la leeyahay baad wax weyn markaas ay dardaarankaas ku yimi weliga waxa wada jeclaan hana wada nabcaan marka qof kasto oo Soomaaliyeed waxa kula talin maaha Soomaaliland qura qof kasto oo Soomaaliyeed waxa kula talin lahaa xilli xun baynu ku jiraa xilli dagaal oo loo joogo isqabsi conflict qaylo buuq dil dac waxa socdaamin inuu ku jiraa xilligaas oo kale qofka sharafta leh waxa hagaagsan inuu is ilaaliyo oo ku xisaabtamo bari oo dadka markay wax dhacaan laba u kala baxa qayb ku xisaabtanta maantii waxa taagan oo inta badan qolaas way ku dhacdaa dhibaatooyin badan ku yimaada markay waxaan dhamaadaan iyo qayb tiraahda matal mahmaad wala doogayaan la dacaroon si kastoo la isu dilo waxa la hubaa Soomaaliyeed dad yar oo isu dhow yihiin heshiin doonaan marka heshiiska wax la hadh man qof kasta kula talnaya bal dawladda kale maadaama sheegtay oo madax dhaqameedku inay guusha keeni karaan iyo in wada hadal ay furi karaan oo jaanisu banaayay dawladda lafteeda maxaa u banaanayada dawladda mas'uuliyadda koowaad ba saaran ba mas'uuliyadda koowaad ee nabadeynta haddii xukuumaddii hore ay taladu ka burburto deedna ay hab dagaalun wax ku waajahday tanina nabad ku waajahda muhiim ayaa waajib way madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waxyaabo badan baa intii uu joogtay xukuumaddiisu la leeyahay waa la qabtay qaramayntii ciidamada aqoonsigii waxyaabo badan bay dadku sheegayaan bal hogaamintiisa oo kale maxaa khaldan maxaa saxan wallahi horta taayana nimka dhex gala ma rabo muddo yar weeyaan khalad iyo saxtoona imka anigu ku dheerayn maayo waxaan se laakiin arkayaa inay Soomaaliland xilligii isagu yimi meel halisa ka soo laabatay ay mareysay oo la isugu tagay odayaal dhaqameed iyo dadka badankiisu intii wax garadka isugu tagaan hay'adaha dawliga ah ba barigaad ku khasaaroobay ama ku guul daraysto sida meel golaha guurtida aynu u sameeysanay inuu nabadeynta waxa ka soo baxday maxay galay laascaanood waxa ku yani hay'adaha dawliga ama government institutions ka meesha ku khasaaroobay shaqadooda qaban kari waayay bulshada rayidka laakiin waxba qabatay bulshada rayidka ba ku guuleystay marka xukuumadda waxa laga doonayaa inay hay'adaha dawliga dhistay si ay u hanan karaan maamulidda isku wadida iyo hagida ummadda reer Soomaaliland horta marka hore aan ku saxay adduunku muu soo wada dhaweyn adduun badan baa ka xanaaqay Soomaaliya Djibouti inay la diriso walaaladeena ba ay aad u dhibsaday hadalkii soo dhigay United Nations ka dooday Djibouti ba garab weyn siisay Muqdisho inagana ay aad inoo dadafeysay horta maxaa Turkiga isaguna dhibaato badan u arkay Sacuudiga horta marka ha odhanin wala inuu soo wada dhaweeyay laakiin marka horta ictiraafku weyn u baahnayn weyn u baahnaay ictiraafku waa waxyaabaha aynaan gorgortan ka gali karin maadaama uu sidaa yahay kulli madaxweynuhu wuxuu u arkay Chinese-ka ugu dhaweynu kaay sidoo isagu ku dooday wuxuu yiri 122 wadan baan waraaqa u diray Israel ba ka soo jawaabtay wala dooda ugu adag marka Turkiga iyo Sacuudiga hadlaan la daadba warqada ku keenay maxay igu jawaabaydi xadxuuni oran weydi Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisa isaguna muxuu oran waayay hata warqad soo qoray dhawariyaan codsiga ay weydiisateen neeyo imka ma awoodi kara sayasaan yalo inuu jawaabayo qofka jawaabta ka aamusay marka horta isaga u taalaal muhiim runtii madaxweynuhuna daliil aad u fiican buu haystaa in warqad baan ku soo diray maxaad igu jawaabtay marka aan waxaan u arkaa dhamaantiin ma aha madaxweynuhu qura anu marka horta waddanka ma fasax baan ku yar maqnaa waxaan daawanayay in Hargeysa calanka Israa'iil uu isqabsaday dariiqada loola soo baxay ummadda Soomaaliyeedna ay ku noqotay shaamareer iyo maxay amankaag la yaab ku noqotay oo aanay garanin arrinkii ahaa
muslimnimo niman kugu dhaqayn muuminimo khaasa gaal maxasta kugu dhowra ood magastaa dham haddaynu ummadda soomaalida hiil ka weynay oo garow ka weynay dee qofku meel buu geli karaa waxyaabaa niman waan la yaryaaban waxaa ka mid ah maaha dowladda muqdisho keliya qofka soomaaliga hadduu joogo kelinka shanaad hadduu joogo maxaa la gobolkan north eastern kenya hadduu joogo jabuuti waxay ka midaysan yihiin inaanay aqbali karin somaliland waxaad arki doontaa ummadda soomaaliya walaalihiina jabuuti laakiin weligaa ma maqli kartid qof odhanaya walaalihiina somaliland taasi de kolley waxay ku tusaysaa ka fogaanshiyo aan la ogolayn somaliland iyo wax la yidhaaho waxaanan u malaynaya anigu shaksiyan marka fikriya dad badan la sheekaystay waxa la yidhaha perception habka fikirka ayaa dhibaato ka taagan tahay soomaalida kale badankeedu majoritygeedu waxay aaminsan yihiin inay meeshan reer quri iska wato reerkaasna dee reer quri uu rabshad niman rabshaweyna yihiin reer qurana aan la aqbali karin xitaa waxay dafiraan si u dafiraan bal haddii balaascaan loo yidhahan dagaalla ka dhacay reer boorame reer selal ayay dafiraan marka waxay arkaa inay reer quri wato haddii reer quri watana inay reerka qura haddii la cadaadiyo la qabto gacan bire laysugu geeyo mara saasay u arkaa waxay dafiraan marka inay soomaaliya ahayd laba dal oo la isu keeno mid walba gaarkiisa xornimo u qaatay somaliland xaq u lahayd say jabuuti batoodii jabuuti waxay aragtay halkii la odhan jiray halkii darbaxay loo halkii ishu cumar ka laalaadiba leeyahay xagaad qaybta xagada cadaaladda qaybta ku baratay halkii ishu cumar ka laalaadiba arkay jabuuti markay aragtay somaliland iyo waxa haysta ayay gaarsiisay laakiin waxa la yaab leeyahay qolada jabuuti waxay ka carartay haddaynu ka cararnay maxay inoo cadaadinaysaa waxay ka carartay midowgii soomaaliya koonfuriya waqooyiyan hagaagin dee waxay sidii dhibtaas umayd ku dhacaysa dee dowlad gaar ay noqdeen wuxuu isba diiday muxuu inagana ugu khasbaya marka adigu marka hadalkala soo koobo tani dee hadal un anugu iska tacliiq ahun laakiin waxaan ogahay ummadda soomaalida inta ogol maaha inta jamhuuriyaddii hore ku jirta qura kuwa xitaa wadamada maamulada kale hoos yimaada iyo jabuuti calanka gaara taagtay midna ma ogola markaan hadalka su-aashaadi u noqdo waynu khamaarnay adkaysigeedaanu yeelano wax kasta aynagu dhici karaa laakiin khayr baynu rajaynayna maxaad uga jeedaa waynu khamaarnay yani waynu khamaarnay waxaynu sameynay maxaa la yihahdaa ictiraaf baynu helay ictiraafka waxaynu ka helay dowlad politically aada loo siyaasi ahaan aada loo diidan yahay wadamada islaamka badankooduna ay si u diidan yihin marka laga reebo dhowr wadano xidhiir la leh wadamaha jira xidhiir lalo ay ka mid tahay imaaraadku ka mid yihiin morocco turkiga qudhiisu innagana cod bayna maqashay isaguna xidhiirka ugu wanaagsan buu leeyahay wuxuu leeyahay mid aada u fara badan mid ganacsi buu leeyahay mid dhaqaale buu leeyahay mid haddana dee hadallada suuqa ay isu mariyaan wax rhetoric baa la yihahdaa waa turkiga wuxuu doonaya inuu isu tuso inuu yahay hogaamiyihii caalam islaami ama hogaamiyihii caalamka suniyiinta iiraanna waxay u dagaalantahay u taageertaa maxaa lahaa xisbullah iyo meelaha shiica u degantoon inay iyaduna isu muujiso inay tahay hogaamiyihii shiicada marka hogaamiyaha suniyiinta imika waxaad moodaa inay isu soo muuqanayaan sacuudiga iyo turkiga laakiin turkiga wuxuu isu ballaarinaya inuu yahay mararka qaarkood islaam o dhan u hadlayo oo dee cusmaaniyiintii taarikhduna waa qaali taarikhdu waxbay hagtaa dadkuna waa haybay maqshay isloon jir taarikhda hagaysa wuxuu isleeyahay beri baad adduunka ka talin jirtay cusmaaniyiin baa lahaydeen ilaa baad ka talin jirtay Vienna Austria Balkanka oo Bosnia ay ka mid yihiin Albania intee ilaa Afrika inagana berberi u joogay North Africa marka taariikhdii hore ee isla weynaan tahay ayaa iyaduna meesha ku jirta laakiin inagana wax isqaban waay inagu malmayna turkiga iyo muslimiin colaad u qabnee danteeni ba adhiiri gasho tabo inaynu jiritaankeena inaynu xaqiijino noqono dawlad ka mid ah dawladaha caalamka jira in baynu halgamayna cidii jiritaankeena marka ka hortimaad weyn yar culoobayna horta inay waad mahadsan tahay waa arrin malaayad ugu dhow dood gaara u baahan oo horta waxa la qaatin taariikhda lagu noqdo inaga oo u degan halka reer isaga degan geeska Afrika oo reerbar reerku ka awood roon yahay weeraro geela ka dhaco maxaa la waran iyo gaashaan lagu dagaalamo xitaa jilib yar hoose loo dagaalamo ayaa waxay inoo yihiin niman reer Yurub cadaan oo la yiraahdo Ingiriis iyo Faransiis iyo Talyaani waxay inoo la yimaadeen inay yiraahdaan okay dhulkan horta sheexan inta anaga leh habka dawladnimo wax ka dejiyaan oo inoo sameeyaan police maynaan lahayn police ku waxa nimanku ku xoog weyn yahay
iyo sida allies reeru isugu tiirsan yihiin police mayna lahayn dhul xadidan oo calaamad leh mayna lahayn maxaa la yiraahdaa maxkamada mayna lahayn iskuul mayna lahayn lagu barto desanimka ingiriisi iyo afka loo barto dad degan oo quraankooda iyo carabidooda iyo inta yar iska barta quraankooduna aanu ka mamnuucin in xoolaha la kala dhaco inta bayna dhageysan jirin sideen sidaa wahayn oo marka qofku wuxuu ku tiirsan waxa booliis ahaa reerkiisa isaga nabadiisa ilaalin jiray geela wala ayaa maali jiray ba lagu gurman jiray dabadna niman baa inoo yimi gumeystaa intii hore runtii gumeystaa waxaanu ka muujinay isgiijinaya inaan aqbalin si kastaba haatin inta iskaga boodayay waxay inooga tageen wax la yiraahdo dawladnimo xornimada siiyeen waxaynu u taaglaanahay marka la halgamayna oo la daala dhacayna sidaynu dawladnimadii iyo dhaqankii ahaa nin walba ninka ku xoog weyn yahay oo warankii gaashaanka inuu bedelay hubkan automatic ah iyo beebeeye iyo taangiyo iyo artillery iyo madaafiic marka waxa dhacday meel dhaxayna marayna aad u fool xuno dhaqankeeni warankii gaashaankaana ka tagnay kii dawladnimadana inta ruushia meel tababar u doonay wadamo shisheeyeen ku ya Cornelia Leonoo sameeyay iyo janankii reer hebel buu noqday hubkiisina wuxuu ku furay reerkii kale wixiiba marka wax isku qasantay siyaasad iyo qabyaalad laakiin haddana soo noqotayna marka Somaliland dhibaatada ugu weyn ka dhacday waxay markii la sameeyay xisbiyada anu saan warko xisbiyadii ba waxay aqbaleen oo xoojiyeen in siyaasad in qabyaaladu si xoogaysato xisbiyaduna way bedelaan sababtuna ku sheegaya iyaga aqbalay xisbiyadu inay yiraahdaan odayaasha soo xulaan golaha baarlamaanka odayaasha soo xulaan golaha deegaanka odayaasha doorashada macnaheedu rasmiga ah la wareegaan reerku qofku ii kana baan aqbalaya waxa ka wanaagsan lahayd in xisbigu liis kariyo dadku isleeyahay ummadan uu hagi karaya meel buu dhaqaajin karaya liiska loo gudbiyo gobolada la intaas anaga haddaan nahay xisbi hebel haddaan nahay kulmiye waxa ii candidate-iga ama ii sharaxan gobolka Togdheer oo kale 15 qof haddaan nahay maxaa la wadani waxa ii sharaxan isagu u keeno isaguna ku soo xulto karti iyo aqoon laakiin marka oday yar caaqil gacanta u geliso odaygeena uu yiraahdo imsaadii dhiibisa aan ku doortay marka soo koobo waxa shuraakoobay nooca sixir bararka ah madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta kuwaasana xalkiina iyaga imka dalka baabiyay iyagana halka ka saari kara sababtoo imka privilege ama waxay haystaan waxyaabo wanaag imka caaqilka kala suldaanka kale xafiis baad marse kiyub aad u gelayso suldaan baa tagan sii daayay loona isaga horta muxuu ku diiday marka chance baa haystaa weeru nin walba dukaanka tago koofiyad yar soo iibsado iyo cimaamad si uu u helo ma garanaysa uu shirarka uga qayb geli karo xafiisyo si dhaqsamada u geli karo xukuumadda intuu galo koona kara reerka waa kicinaya ama gaari iibi wakaas marka waa inay xisbiyadii markii hore gacanta u geliyay odayaashan iyo waxan systemkan wuu jiray qabiilka leeyahay laakiin in la sii xoojiyo maaha waa in la yareeyo ma suldaanka adeer reerkaaga ku kooban tahay reerkaaga wuxuu ku dirta qaba laakiin xukuumadda anaga nala doorto si taas u dhacda laakiin waa in golaha guurta noqdo mid jira oo shaqeynaya waa in baarlamaanku noqdo mid jira isaguna shaqeynayo awood leh waa in xukuumadda fulinteeduna awood leeyato waa in jiraan ciidamo amni oo xoog leh oo cid jabisa xeerkaas waxa wax ka qabanaya waa in jirta maxkamad cadaalad ah laaluush lagu kala qaadan waxa soo markaa dhisno ee dawladweynaha hagaagsan way aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa kaga mahadcelinaa waqtigaaga iyo waraysigan aad nagu siisay Tishahi TV daawadayaal waxaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa waraysi kooban oo dhinacyo badan taabanaya oo la yeelanay Cabdiraxmaan Jaamac Ismaaciil oo loo garanayo yahay injineer Jamaal Jaamac Yare oo ka waraysanay xaaladda guud ee wadanka waraysiga waxay la socodsiiyeen aniga Axmed Daahira aniga iyo injineerka iyo bahda Tishahi TV waxay kaga tageynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh abba ma santay